maalinta ka dambeyso waa kasii fiicanahay boqolkiiba boqol. waxaan sida xanuunka caadiga waaye oo maxaa la dhahaa asiga qof walba bini aadan uu ku dhici karaa, qof walba xanuunsan karo. wax dhib leh oo wax dhib leh oo maanta qof khaas u ehna ma jirobo. ninka ilaahay u qoran tahay dhimanayana waa dhimanaa, waxa waaye qof loogu talagalay oo waqtigiisa inuu dhaafo ma jiro. muhiimadda waxay tahay qofka cudurka inuu dareemi karo waxaayo, inaad dareemi kartid iyo meeshuu kaaga imaaday inaad dareemi kartid. ilaahay aqliga ku siiyey alxamdulilah. sorry, qofka inuu dareemi karaa rabaa bas wixii haayo iyo meesha xanuunayso inuu dareemi karo. maalinta ugu horeysa isku arkay waxay ahayd jimciyada lasoo dhaafay. jimceedii ahayd jimkaan ka imaaday, jimaan jiray. dabcan saa ogtiin ba meel jimaa aadaa, jimkaan jiro. maalinta caadi soo almindaya. horta codkayga maqlusin amiin yaa rabbi, waa fiicnaana insha allah. codkayga maqashiin codkayga maqashiin codkayga hadaa maqashiin oo ku maqalnaayo soo qora. ها marka jimcihii hadda lasoo dhaafay jimceeda ahayd alxamdulilah. waxaan jiray meesha keliya oo shaki qabo jimka waaye. jimka aan aadi jiray oo shaki qabaa. saasay tahayne jimka waxaan u qaadan jiray daawada gacanta lagu dhaqdo. daawadaas u qaadan jiray markaan galaa iyo markaan kasoo baxay waa marsan jiray. laakiin waxaan u maleynayaa jimka dhexdiisa waxaa ku taalo tubo biyaha laga meerto oo biyaha dadka dhan ay ka wada cabaan. marka inaan tubadii gacanta ku qabsadayo biyihii meesha mar walba aan kusoo shubanayay kadib aan dhiiday inaan sanka iyo afka sidii ku taabtay aan maleynaa. maalinta jimcaha jimkaan ka imaaday alxamdulilah, waa fiicnaa, caafimaada qabay. wax maanta aan sheeganayo oo xanuun ay markaas jiray ma jirin. jimkaan ka imaaday boorsadeedu waa batay. guriga markaan soo galay waa qadeeyay caadi u joogo. galabtii aanu tv fiirsanayo oo telefishinka shata tv fiirsanayo gurigan la fiirsanayo qandhay soo fooshay. qandhadii kadib meeshaan fadhiyaan ku hurday. marka meesha oo telefishinka dadka la fadhiisanaya la fiirsanaya meeshaan ku hurday. qandhaha soo qabatay zaaid ee waa dareemay. marka ilaahay aqliga ku siiyey qofka ibnaadinka meesha xanuunayso madax xanuun haayo, hadduu neerfaha xanuunayo, haddii maskaxda xanuunayso inaad dareemi kartid al rabaa. dee dabcan waxaan dareentid hargabna weligaa kugu dhici jiray. hargabka inaad sheegtid wuxuu yahay ama caloosha ma ka xanuunayso ama dhabarka ma ka xanuunaya, meesha ku xanuunayso exactly inaad sheegi kartid aa wanaagsan. alxamdulilah meeshii iska seexday. habeenkii sidii aan ku seexday. subaxdii waa soo kici waayay. marka subaxdii labaad sariirta waa kasoo degan waaye. sariirta iska saarnaa. subaxdii sariirta iska saarnaa. qandho zaaid ay heesay. qandhadii kadib murqaha ay ugu darsamaday inuu murqaha zaaid iyo xanuunaan gaar dhabarka murqaha dhabarka ku yaalo. dhabarka caadiga ma labada murqo dhabarka geesihiisa ku yaalo iyo cajaraha zaaid iyo xanuun. dhabarkii cajaraha ay xanuunayaan waa is dareemay. guriga markaas familkan waxaan dhahay anigu xanuunsanaya, xaaladeeda caadi ma ahan oo يعني yaa layso dhawaan ha laga sogto. dabcan waa iska ogtiino familkaaga ma kaa aaminayaan. yani horta aniga dhibaatada aqribna waxay tahay cid kaa aaminas male. familka waa laga diidiyo waxa lay dhahay may waa caafimaad qabtaa, hergab le waxaan hasaadsanin. dabcan asina hergab le waabo, yani hergab camal sida hergabka exactly hergabka ku arkaysid asina ku arkaysaa. familka dhan waxay dhahayeen hergab waaye, يعني wax kale ku hayo ma jiro. dabcan shaydaanka iska naar hasaadsanin. okay adhay qof xanuun saadsanayo ibn aadan ee ilaahay uga ma jiro. waxaan dhahay hergab hadduu yahay kale waa la arkaa, laakiin waxaan dareemayo hergab ma. maalintii labaad haddana qandhada saasay ii saarneed. xabadka zaaid ii xanuunayay, dhabarka zaaid ii xanuunayay, murqaha zaaid ii xanuunayay. waa dareemay. habeenkii maraa mantagay. hamra masqusha aadiyo mantagay. subaxdii saddexaad markaan soo kacay ama masqusha galay wejigana iska dhaqmaagay. waa indhayga hadda alxamdulilah way roon yihiinbo. waxa waaye cadaan waaye.
musqusha markaa galay maraayada kor asaas fiiriyo isdhahay indhaha dhina ay gudutay indhaha dhan waxay qofka naqanayaan sida kaano inuu qofka hor naqanayo filimada horarka maaragteen waraabaha camal inuu naqanayo indhahayga waxaa kasoo baxay xidido gudguduudan gudaha marka hadda waa roon lahay indhaha xididaha kasoo baxay gudguduudan marka exactly markaasaa dareemay inuu wax kale yahay markaasaan dareemay indhaha markay saas ii guduteen arkay xidido kasoo baxay iyo bishimahayga fiiriyey bishimaha qofka waxaa arkay marka sun camal madmadow ay naqanayaan inuu qof wax sun inuu gaaray camal bishimihii madmadow isoo galay maalin saddexaad ay ahayd maalinta afraad exactly ay zaaid xanuunka isoo foolaan aa dareemay wejigayna inuu isbedelayo korka dhinaca qofka isdareemayo waxaad dareemaysaa inuu korkaaga wax ku jiro waxaan caadi ahayn inuu ku jiro dareemaysaa marka maalinta afraad marka isbitaal wacanaa oo isbitaal la xiriira weli saastay guriga waa laga diidiyo waxaa leedahay waxa waaye hergable wiilo ku hayo xanuunka ma ku hayo isku joog familkan oo dhahay iga sigta yaa leedahay mayo hergable ku hayo marka sidaas indhahaygaan tusiyey dadka guriga waxaan indhahayga waa aragtiin maayo oo iga sigta xaaladeeda saasay noqonaysaa almuhiim alxamdulilah maalinta shanaad aan doctoorka wacnay doctoorka xaaladii oo sheegnay isaa dareemayo naqaskan inuu igu soo dhedhegayo doctoorka wuu dareemay isla markiiba wuxuu dhahay saas waa doctoorkaas intaan la hadlin doctoorka aan wadankaa joogo doctoorka intaan la hadlin yar Soomaali ah doctor oo Zola Portal Beachkiisa soo dhigaayo oo Yaasiin la dhaho oo Shiinaha joogaan la xiriiray doctor Soomaali ah doctorkii Facebook kala hadlay marka xaaladeedu baa doctor waxaan dhahay saas ay hayso saas isku day doctorka Soomaaliga wuxuu dhahay yarkii doctor Yaasiin ilaa kharasiyo wuxuu dhahay doctor Yaasiinka wuxuu dhahay niyo calaamadaha oo baalgas lagu garto wuu ku hayaa marka laakiin nin dhalinyaro tahay asaan ii dhisay oo nin dhalinyaro tahay la dagaaltino cunto fiican cun khandada iska jabi mar walba qubeyso cunto fiican cun fitamiinaadna qaado wax daawo ama doctorka Soomaaliya markuu saas u taliyay oo ii sheegay inuu ku celiyo kuwan wadankan telefoon u diro kuwan Ingiriiska waa markaa hadana la xiriiray marka u sheegay xaaladeeda say tahay waa dareemeen isla markii waxay dhaheen dadka ka dhaxbax dadka ka fogow cudurka waaye waxaas laakiin dadka ka fogow dad hayuusan ku soo dhawaanin gurigaaga kaliya ku jir isbuuc ku haya hadii uu badato 2 isbuuc ku hayna 2 isbuuc kadibna isbedeshada laga yaabo ku fiicnaatid hadii 2 isbuuc kaaga bixi waayay dhaheen waxay ka zaa'ida oo bas itaala u baahan yahay laakiin hadii 2 isbuuc ku ekaatidna waxa way ku filanta walaal marka alxamdulillah so mid aadin sheegay mise aadin ku waananayo waxay tahay khando iyo murqo xanuun dabcan waa taqaanaa qofka hergebka caadiga ee kan isku mid ma ahan exactly hergebka camal ku soo galaya laakiin hergeb ma ahan yani wax ka duwan waa dareemay indhahaaga ku guduudanayo faruuraha waa ku madoobaanayaan wajigaaga waa isbedelaya kalarkiisi waa isbedelaa inaad dareemi kartid aroo marka waxa jeceshay iyo wixii ku dhow iyo wixii muslim ah ka fogaatid ka fogaatid dadka ka dheeraatid khandadana qof walba jirkaaga taabta mas qof walba xabadkaaga taabta dareemayo qandho zaid ku la dareemisa madax xanuun waalin uu leeyahay madaxa labadaas geesaha laga qabanaya madaxa labadan gees madax xanuunka caadiga aan qanama labada geesaha laga qabanaya alxamdulillah wallahi dadku kula talanaya khartuun cab qaar sanjibiil cab qaar wax cab qof xanuunsan boqol la taliso marka inta waa sameeyaa quraanna waa akhristaa alxamdulillah subax markaa soo kacay quraan akhristaa shanta maalin ugu horeysa ugu darnaad maalinta koowaad ka ciwaay maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afraad maalinta shanaad maalinta lixaad markay ahayd caadi u fiicnaadiyo oo maalinta lixaad iyo maalinta toddobaadna caadi u fiicnaay alxamdulillah ilaa maad iskale waan la xiriiraa doctorka maalin walba isoo duceey idinkan ilaahay intuu muslim ka qabto tole intaas waa calaamadaha aan idin sheegay dhabarka murqaha dhabarka iyo dabada iyo cajaraha
ku xanuunayo ma istaagi kartid, istaag waa ku dhibayaa. wejigaagana waa isbedelaya kalarkiisi, indhaha waa gududana qofka, bishimahaagana way isbedelayaan. qunfacna waa keenay oo dhuunta bas dhuunta keliya aa ku qunfacay sidoo fiiraha aanan jirin. dhuunta wuxuu ka naqanaa qofka inuu xasaasiyad ee dhuunta ka haysa camal. inuu qofka dhuunta xasaasiyad ka qabo camal naqani. marka waxa adinku talana waxay tahay ina is aamintaan. qofka markuu idin dhaho ani guriga waa lay aamin waayo familka, ilaahay hada caafiyo. qaar familkay kamid ah hada xanuunsan, laakiin ilaahay uma kaso, ilaahay caafiyo. because maalinta kow aan sheegay maalinta labaad waa lay diiday. waxaa la dhahay ma ahan cudurka ma qabtaan oo saadinin hasaadsanin, hergab cayda ku hayo. laakiin mar walba iska dareentaan isbedel aad dareentaan oo hergab ka baxsan ka sigta, waalidiintiin ka sigta, caruurtiin ka sigta, asxaabtiin ka sigta. dabcan inaad dareemi kartid la rabaa waxaan ha ahaato wax adig keliya wax adig keliya ku eg ha ahaado. aamina marka familkan aamina. hadduu qof idan dhaho qandha i hayso waxa i hayso hore ka aamina. ani familka alxamdulilah labada bir wareyso way aamini waayeenoo hergab cayda ku hay hadalka igu soo xireen. hadda ilaahay ha caafiyo ayagana inta xanuunsan oo familkeyga iyo familka kale way inta muslimna ilaahay ka dulqaado. haddaa xanuun iska dareentid dadka ka dhexbax oo keligaaga gooni u fadhiiso. marka ninka tiis u qoran tahay waa dhimanade, dhimashada cid celin karta male. ilaah nafsadan wato marka hore ilaahana keena adduunkan haddana dhimanayn ilaah igtisaa loo laabanaa. dhimashada cabsi male. dhimashada xanuunkaaga ka badanba, dhimashada xanuunka ku qabanayo ka daranba, dhimashada roon alxamdulilah. ninkii dhinta waa dhintay ilaah igtisu aada, laakiin ninkii nool xanuun la noolaa daran. xanuunkan isbuucii hore waa keliya arfaadaysa, isbuuc kadibna qofka caadi u noqonaa. iyo cuntada mar walba dakaatiirta waxay ugu talinayaan inaa cunto fiican cuntid, inaa cuntadaada cuntid jirkiisu awood u helo. hadduu jirkaaga daciif yahay marnabo meel ma gaarayso. inaa cuntadaada caadiga aa cuni jirtay aa cuntid 3 waqti iyo ka badan inaa cuntid. mar walbo qandhana isku aragtid inaa qabeysatid bes saasaa lagu talina. adigoo tirta qabeys zaaid inaa heshid, cuntada fiican inaa cuntid, cuntada ka cashashin. dad waxaa jira markay xanuunsadaan cuntada ka go-ayo. cuntada inaadan ka go-in oo cuntadaada 3 waqti iyo ka badan aa cuntid. daa cuni kartid biyo badan cabtid, biyo badan inaa cabtid. barastimool bes mar walba qandho kusoo fuusho inaa barastimool cabtid oo qandhada iska jabisid. barastimool fiican aa qaadatid, cunto fiican aa cuntid. intaas ku dadaalo. iyo dadka inaa ka fogaatid. dadkaaga ka mid ah haddii aadan ilaahay taqaanid oo muslim tahay oo cudurkan aa rabin inaadan faafisid, dadka ka fogaaw, dadkaaga ka dhexbax. dadkaagana ha ku aaminaan inaa cudurka qabtid, inaa xanuunsan tahay. hergab waay aa lagu dhihin bes. hergab waa isna sarkiisa, hergab isbedelay waa. laakiin hergab kaa tan badan uu noqonaya. marka ilaahay caafimaad ha keeno. waa idin salaamaya dhammaantiin. isoo duceeyo intii muslimna ilaaha ka qabto. is ogaada bes insha allah. ilaahna xafido khayr badan idin jecel. intaas rabay inaan soo socodsiiyo dadka isoo wacayaan wicitaanka badan igiraafo. intaas qof ma la hadli karin. dhuunta ay xanuunayso oo dhuunta ay cunayso. marka waa mahadsantihiin. qoraaladiin way isoo gaaraan. ilaah caafimaad hana siiyo. iyo videoda ay soo diraysiin please. videoda ay soo diraysiin oo dhimashada ka sheekeynaya ama waxa ka sheekeynaya. dhimasho xaq waay. ninkii ilaahay u qori waa dhimanaya. ninka adduunkan ceesh ku lahayn cid celin karto male. xanuuna virusa sheegaysa 100 virus duu kugu dhacana wixii ku qoran ma ka faysade. videoda dhimashada ay soo diraysiin intaasaa dhimatay, intaasaa nool, intaasaa xanuunsan. iga dhaaf ana xanuunsan alxamdulilah. ilaahan xanuunka keena ilaahan xanuunka keena, ilaahan xanuunka qaado. marka haddii aniga qoranta inaan ku dhintan waa ku dhimanaya. intii haddii ani ceesha adduunka ku leeyahay waa ceeshaya. waxaan xanuun caadi waaye. qof walba ku dhaca, aniga ku dhacay, adigu ku dhacay, qof walba ku dhici kara. ilaahay idinka yasiro. salaan videoyada iga ilaaliyo. waxaa dhibsaday videoyada waa dhimashada ay soo diraysay mar walba. ninkii geeri u qoran tahay maalintiis hal maalin ma loogu darayo. marka waa idin salaamaya dhammaantiin. haddaa xanuun iska dareendaan familkiina ka dheeraada. haddii caafimaad qabtiin ilaahay idin zaa'idiyo.
haddii xanuunkaas qandha iska darantaan cunto fiican cun iyo barastimool iyo khabeyska iyo biyo badan cab. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.